بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كان وعشر كسديدات دور ديني المشكلات التربوية في الخلاوي القرآنية waxaan ka soo hadlaynay tasarrub addirasi aw at-tasarrub ad-dirasi oo ah ciyaalku inay dugsiga isaga baxaan tacliintana isaga tagaan kutubta xoraan cashirka hore intaan soo jeediyey kadib cashirkan maaragtay kii hore kadib waxaa ila soo xiriiray walaalaha qaar oo iiga sheekeeyey qisas ay kala kulmeen arrimahaas iyo inay tahay arrin soo noqnoqoto runtii waxa weeye waa arrimo saan soo xusnay nafsi la xiriiro xoog in lagu wajahana ayna fiicnayn marnaba halkan waxaan ka gelaynaa ashkaalu tasarrub al-atfaal min ad-dirasa ardayda tasarrubka laftiisa maraaxil buu soo maraa للتسرب الدراسي أشكال كثيرة أشهرها ما يأتي وعنسا التسرب الفكري أو الشرود الذهني كو عنق وحكب الله وحل هذا التسرب الفكري وإنه مسكح دي سيبان جوغ جركي سيبان جوغ شرودك وبحتاك عنق إنه سكب حسين ساسو سكيه خوصبو فيرنا ومغيه العاشر كافر قال لي هاي معلنكو سو جيدنا يا هل كيسيبو هدنا كسي ميسا يا وحير كدي بحيث تجد الطفل سارحا ومركا عنقه وأكتو إنه يهي مد مقان سارح شارد دي واسكو غارقا في أحلام اليقظة وحو اختبارنا maaragtay riyada soo jeedka wax axlaamul yaqada la dhahay jira axlaamtu waa riyada laakiin riyada soo jeedka waa maxay waa qofkoo fakerayo oo wax riyo kale uu isaga dhex jiraa laakiin waryaha markaa dhexdeed buu haa buu kuleeyahay martaba aad bay arrintaa usoo noqotaa caruur badanna macallimiintu aad bay arrintaa uga sheeganaya cunugu waa maqan yahay في أحلام اليقظة التي تاسو يجد فيها بعض الأطفال عروض قار أي كدكتان متنفسا ما لا يكون نفسان ومهربا ما لا يغعران جيدا ونكسا عن واقعهم واقع المشحون كبوح بالضغوط عدادسك عروضها عدادس بدن بصار خليشة سكول كبير ديغانيان دكسي بي ديغانيان waxa uu rabo kama cabiri karayo hormar waad ka naxaysaa adiga maalan haddaad tasxiix dhigato ama aad darsi tafsiira dhigato ama wax un aad dhigatid maalinkaad caajisanta oo aragtay inaad socon karin sheikhaad la hadlaysa waxaa leedahay sheikh maanta runtii waa igu adagtay inaan imaado laakiin cunugan xitaa asagoo aad iyo aad maaragtay caajis u dareemaya madax xanuun ma leh awood uu ku sheegto hadduu sheegtana waalidku inta badan kama dhegaysanayaan maxaa yeelay marmar bayba xitaa waxay ku wareerayaan inay kala saaraan inuu isjiraysiinayo inuu jiran yahay inkastoo ay habboon tahay waalidka iyo macallinkaba inay si dhug leh u fiiriyaan arrintaas cunugu markuu aad u tacbaansan yahay oo u caajisan yahay xitaa jirooyoon ahayn wax marmar qofku wuu iska caajisayaayo inuu seexdo ama nasto u baahan yahay marka culays badan baa saaraa carruurta marka carruurta qaarkood maadaama inay sheegan karin mujtamaceennana mujtamac carruurta ah la dhegeysta maahan geesinimo ma lahan ay wax ku sheegtaan way baqayaan wax walba ay qarinayaan xitaa beenta waxaa keeno maxaa la yidhaahdaa cunuga in uunan loo siinaynin waqti inuu hadlo oo uu sheegto wuxuu balu fiirsa carruurteena inta badan ma sheegtaan waxa ay ka sheeganayaan marka hurdadaas aan dhahay riyo soo jeedkaas riyadaas soo jeedka lagu gelaya ayuu wuxuu ka helayaa meel uu ku nafiso qodobkaas waa mid oo tasarrufku ka mid yahay oo meelaha uu ciyaalku ka bilaabaan bay ka mid tahay labo ta'akhuru can ilmadrasa inuu cunugii madrasada u ka taho watacallul inuu cillado keeno bicilalin wa mubariraat cilooyin iyo maaragtay sababo mubariraat waa sababo min mithl ta'akhuru fi nowm hurdadan ku daahnay aw ta'akhara saa'iq darwalkii soo qaaday magaalooyinka waaweyn oo kale ciyaalka darwal baa meel u qaado darwalkii soo qaaday ayaa soo daahay kuwa qaarkood hadda magaalooyinka waaweyn waxay sameeyaan uniformka dugsiga lagu dhigto kaloo luminaya ama kitaabkii wuu luminaya marka kitaabkii waa la raadinayaa wax badan baa la arkay kitaabkii waa la raadinayaa inta ka bax kitaabka sidii loo raadinayo waqtigii baa dhacaya ama uniformkii ma hayuu leeyahay intuu iska qariyo waxaas oo dhan waa nooc hidaayaadka tasarrufka qayb ka ah waay
xitaa waxaa la arkay ciyaal yaryar oo magaalooyinka waaweyn sida Nairobi oo kale iyo furihii luminayo guriga furaa lagu xirtaa habeenkii marka la seexanayo furihii buu meel ku qarinaya waxaasoo dhan waa diidis dugsiga ka haysato hadduu u xiisaysan yahay wuu u ordi lahaa ثلاثة الهروب الجزئي inuu si haafa u cararo oo macnaha juz'iga waxaa weeye maalan marka duhurka qadada la fasaxo oo kale inuu soo noqonin ama casarkii markii haddii la yara fasaxo ama meel baan aadi intuu yara dhaho uuna soo noqon fi awqaati الاستراحات xilliga bareegyada oo kale inuu soo noqonin aw qabla nihaayati dawaam المدرسي inuu intayna ayna dhammaanin afarta markii haddii la fasixi jiray 11 ama 5 galabnimo laga yaabo inuu sii baxsado oo heer waxay gaartaa carruurta qaarkood baktiga ay dareemayaan iyo macallinka intay u sheegtaan geesinimo leh si geesinimo leh in laga dhegeysanayo ordaya iska baxday maadaama caajisantay aan dhahay aana la dhahin ardaydii oo fadhido inuu cararo oo bik yiraahdo oo maaragtay qayb ka mid ah midda ugu dambaysa alhuruub alkaamil waaye aw tasarrub alkaamil inuu dugsiga oo dhanba cunugii uu ka cararo oo uuna ku soo noqonin maraaxisha ayuu soo maray xulusha marka muqtaraxa ah ee aan soo jeedinayno bal arrintaas sida loo xaliyo waxaa ugu horeeya atarbiyatu bilxub bal cunugaas in loo yeero oo lala hadlo oo la dhiirigeliyo oo la targhiibiyo oo jacayl la tusiyo oo lagu cilaajiyo xoog aan lagu cilaajinin si kale lagu cilaajiyo waa arrin muhiim ah axad almucallimiin jazaah allah khayr oo ka mid ah walaalaha dowladan ku taxan baa wuxuu iiga soo qisay wiil yaro uu dhalay oo sidaas oo kaleete madrasada ooga cararay oo la waayey oo markii dambe meel fog oo duur ah oo webi agtiisa ah oo kayn ah laga soo dhex arkay oo markii dambena uu yiri maaragtay macallinka ayaaba wiilkaaba aabba u ahaa marka marka uu la xaalay oo maaragtay uu muujiyey in maaragtay wixii hore laga cafinayo oo kada alxamdulilah wiilkii markii dambe siiqadaas uu ku fiicnaaday oo ninkii uu isbedelay oo hadda maasha allah meel fiican u maraya ilahi subxana watacaala u barakeeyo wahiya mushkila tarbiya bilxub in jacayl lagu tarbiyadeeyo oo maaragtay cunuga loo qiimeyn loo muujiyo baru cilaajin waa cilaajka ama maaragtay daawada ugu weyn lijamiici almashaakil النفسية mashaakilka nafsiga ah والتربوية هي التربية التي نواجهها تاسع كجرته في خلاوة القرآن الكريم تكسيده القرآن الكريم ويكفينا نموذجا وحنوفلا تصالح نموذج للدلالة على أهمية التربية سام أوتوسينو تربية بالحب سي سامين عنقوي أنا كرت في جذب الأطفال سامين تقول هذا السوجي الشرع قصة الصحابي الجليل الصحابي وين زيد بن حارثة رضي الله عنه قصديسي التي رواها أصحاب السير كتبت أصحاب السير كويوريين وملخصها كما رواها الحافظ بن حجر سيد حافظ بن حجر والشيخي في الإصابة وقصدي زيد بن حارثة زيد بن محمد بالده هجري مالك إماتي قصة وقسعانة أو طريق مقاشين أن زيد بن حارثة marka iyadoo lasoo koobay waxa weeye ana zayd bn xaritha radi allahu canhu usira waa lasoo qafaashay wahuwa طiflun asoo ilmo yara fi ixda almacaarik dagaalada mid ka mida bayna qabiilatihi wa qabiilatin ukhraa qabiilkiisa iyo qabiilo kale dagaal u dhexeeyey baa lagu soo qafaashay faxtamaluuhu way soo qaatay wa ataw bihi ila suuqi cukaad la odhan jiray maka ku yaalay ayay keeneen facaraduuhu lilbayc waxay maaragtay way beeciyeen marka فاشتراه حكيم بن حزام أيا إبسدي حكيم بن حزام أيا إبسدي لعمته خديجة رضي الله عنها ب400 درهم أيوكم إبسدي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين فلما تزوجها مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له زيد بأوهبي سي أدون كان أنا قال أوهبي قال فحج ناس من كلب قبيلة كلب اللي يراهدو dad ka mid ah ayaa soo xajiyey fara'ow zaydan zayd bay arkeen facarafahum wacarafuu way isgarteen isna wuu gartay ayagana way garteen faqaala wuxuu ku yidhi abliquu ahlii ahlkii gaarsiiya arrintaa gaarsiiya macnaha inaad i aragteen fantalaquu la soo tageen faaclamuu abaahu aabbihii ayay arrinta u sheegeen fakharaja xaarithatu xaaritha ayaa soo baxay wa kacbun akhuuhu iyo walaalkii kacab bifidaa'ihi say usoo furtaan
faqadima maka markay soo galeen fasa'alaha can الnabiy sala allahu alayh wasalam faqiila huwa fi lmasjid nabiga alayh salatu salaam bay soo raadiyeen marka waxaa lagu yidhi masjidka ayuu ku jiraa kacbada fadakhalaa calayhi waa u galeen faqaala waxay ku dhaheen yabna cabdilmuطalib ina cabdilmuطalibow awogiis bay ugu yeerayaan yabna sayidi qowmihi qowmkiisa ninkii sayidka u ahaayow antum adinku ahlu xaram illah baati xaramka ilaahay dadka ahalka u ahaa baati tafukuuna alcaani qofka maaragta asiirka ayaad soo furataan wa tudcimuuna alasiir qofka qafaalanna waad quudisaan ji'naaka fii waladina cabdak wiilka annagan addoonka ku ah ayaan kugu imaanay famtanna calayna noo manafalo noo sida wa axsin fii fidaa'ihi furashadiisana noogu ixsaan fal fa innaa sanadfacu laka wax baan ku siinayna intaa markay ku dhaheen nabigu alayh salatu salaam wuxuu yidhi wamaa daaka waa kuma ninkaa oo kaa muxuu ahaa qaaluu waxay dhaheen zayda bna xaarisa faqaala wuxuu ku yidhi awa gayra dalik intaas waxaan ahayn miyaad igu imaadeen dacuuhu u yeera fakhayiruuhu doorimaad geliya fain ikhtaarakum hadduu idin doorto fahuwa lakum qaata adinkaas kale nacam fahuwa lakum bigayri fidaa'in anoo waxba madax furashaa idinka qaadan ayaa idin siinayaa wain ikhtaaranii hadduu aniga laakiin i doorto fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa ana anigu ma ihi biladii akhtaaru mid ka dooranayo calaa man ikhtaaranii qof aniga i doortay ku macnaha ka doorbidayo oo ku iibsanayo fidaa madax furasho qaaluu waxay dhaheen zidtanaa cala annisf macnaha waxa weeye waad si fiican yaad u wanaajisa wey zidtanaa cala annisf arrinta iyo garta waadna siisa wey fadacaahu waa suu u yeeray nabigu faqaala wuxuu yidhi hal tacrifu haaulaa miyaad garanaysaa dadkan qaala wuxuu yidhi nacam haa zayd baa odhanaya hada abii waa aabbahay wahada cami qaala wuxuu yidhi faana anigu nabigaa odhanay sala allah alay slam faana anigu man qad calimta midka aad garanaysaan ahay waqad ra'ayta suxbatii laka saaxiibtinimadayda iyo saan kuu wanaajiyey waad ogtahay fakhtarnii aniga i dooro aw ikhtarhuma ama iyaga dooro faqaala zayd wuxuu yidhi maa ana anigu maihi biladii akhtaaru calayka axadan qof aan kaa dooranayo ma jiro anta minii bimakaani alab aabba booskii baa aad iga taagan tahay walcam iyo ma garatay adeer faqaala markaas waxay ku dhaheen wayxaka roogowba yaa zaydow atakhtaaru alcubuudiyata ma addoonnimaad ku doorsanaysaa cala alxurriya maaragtay xornimadii ayaad ku doorsanaysaa waa inaad xor noqotid ninkaan addoon inaad noqotaad dooranaysaa soo maha wa calaa abiika wa cammika aabbaha iyo adeerkaa miyaad ka doorbidaysaa wa ahli beytika iyo dad kale ka dooranaysaa qaala nacam buu ku yidhi innii anigu qad ra'aytu min hada arajuli ninkan waxaan ku arkay waa midaan usoo socono usoo deliishanay qad ra'aytu min hada arajul ninkani waxaan ka arkay buu yidhi shay-an shay maa ana oo maaragtay sabab iigu noqonayo shaygaasoo maa ana aana anigu ahayn biladii akhtaaru calayhi axadan weligiina aanan qof kale ka dooranaynin ayaan ku arkay buu marka waataan sheegaynayoo biya bilxub qof markii loo axsaan sameeyo in wax walbo uu u samayn doono maaragtay inuu qofkaas inuu raaligeliyo falamaa ra'aa rasuulullahi sal ly slam dalik nebigu markuu arrinta arkay akhrajahu waa soo waday ila alxijr xijr ismaaciil ayuu keenay kacbada ayuu keenay faqaala markaasu wuxuu yidhi ashhiduu ana zaydan ibnii zayd inuu wiilkayga yahay yarithunii wa arithuhu aan dhaxlayo uu idhaxlayo waa intay maaragtay islaamku u imaanin oo laga xarameeyo arrintaa falamaa ra'aa dalika aabihii iyo camuhu adeerkii markay arrintaa arkeen oo nebigu inuu wiil ka dhigtay daabat anfusuhumaa way farxeen marka addoon maaha bay dheheen markaa wansarafaa way iska noqdeen faduciya zayda bna muxamed faduciya zayd bnu muxamed baa loogu yeeri jiray xataa jaa allahu bilislaam ilaa islaamka uu yimid wa abtala uu buriyey attabanii in maaragtay udcuuhum liaabaa'ihim ilaa ilaahi uu ka yiri subxaana watacaala tabaniga wiil aada qalin inaad wiil ka dhigato la manciyey marka qisadaa waxay ina tusaysaa qofka haddii ixsaan loo sameeyo oo lasoo dhoweeyo wax badan in laga bedeli karayo maa baaluka xayawaanaadka libaaxa dadka cuno ayaa haddii lasoo dhoweeyo oo wax la siiyo
qofkaa wax siinayo maaragtay wuxuu bilaabayaa inuu aliif noqdo oo u soo dhowaado. هذه قصة تغني عن كثير من الكلام هذا الفربض والمقال مارت أراه في موضوع علاج المشكلات التربوية موضوع إن لو داوي مشكلات التربوية التي تعاني منها خلاوي القرآن الكريم في بلادنا بالحب واللطف واللين جعيل تبع سنان إن لو داوي فلنتأملها قصة يقوى لمتكاعينه سفي عن لقل أفرسن وأمثالها من القصص التي تروي لنا أساليب التربية النبوية تربية النبي عليه الصلاة والسلام أساليب قابك وحو تربيتين النبي ومبادئها العظيمة في مبادئ ذي واوينات سمارت قضب كمر قضب كوبات واي نسبة وين بقول كبا تضباطا كبضنا ناس أياه maaragtay yaa isku fuuqsanaysa walidaalika tarbiyada cilmiga tarbiyada waxay sheegaan boqolkiiba haddaan u qaybino tarbiyada boqolkiiba 70 waa xiriir wanaagsan inuu macallinku la yeesho ardaygiisa inuu waalidku la yeesho ilmihiisa boqolkiiba 70 waanada iyo waxbarka iyo khaladka laga celiyo iyo wadada saxan la tuso intaasoo dhan boqolkiiba 30 bay isugu ururaysaa boqolkiiba 70 la qofkan horta aad tarbiyadaynayso ma ku jecel yahay ha marka boqolkiiba 30 kaliya wey annagana bilcagsi baan ka dhignay cunuga maantana waxaa laleeyahay si fiican ha loo garaaco si uu si fiican wax ugu barto waa inuu baqo baqitaankaas hore u soo xusnayo inta aad hortaagan tahay waay markaad ka sii jeesatid waxay u talaysa male walidaalika waxaa daliil ku ah ciyaalka qur-aanka xifdin jiray markay weynaadeen dugsiga ka tageen dib damba uma fiirinayaan leannahu jacayl aan iyo in xaafid quraan uu noqdo uma baranine ushaasuu ka baqaya ushina waa ka weynaadayo waa xoogaysta asaaba macalinka xoog badan marka walaalayaal arrinta inaan dib u eegno ayay u baahan tahay annagu mujtamaceena soomaaliga ah waxaan u haysanaa tarbiyo hala tarbiyeeyo cunugan haddii la dhaho hala garaacaan ka wadna oo cunugan si fiican ha loo tarbiyo ha loo edbiyo haddii la yidhaahdo waa hala garaaco ayay ka dhigantay cilmiga tarbiyadu wuxuu leeyahay boqolkiiba 70 waa calaaqa tayiba inaad la yeelato qofkaa tarbiyadaynayso ama macalinkiisa ahow ama sheekhiisa ahow ama aabihii ahow ama hooyadii ahow bal arrinta dib aanu fiirino qof walba carruurtaada ardadaada ma ku jecel yihiin xiriirmada ka dhexeeya garatay carruurtaada guriga ku joogta laftooda sidaas oo kale qodobka labaad عدم الضغط على الطفل عنق إن أنا عدادي الصارم وعدم توبيخي إن أنا العنان أكو عنق على الراس ونقضه إن أنا قرع له سيدر سيدي قصدي أهرا أغسر شاكيني نينكي باديها عنق إنتو عرري خلص للرادية تكسيك عرري ومركز قد روا لو تجي هدانا لقى سوق قبطي هدانا لقراعي هدانا أمن هبين إنتو عرري قد كي مرلبات كل حد نقضي ولا قى سوق قبطي مركلين cunugu markuu imaado oo cararka iyo duurku galay uu ka imaado waa in lagu soo dhoweeyo in la maslaxo in lala fariisto maxaa kugu dhacay in la ammaano ma garatay bal mar dambe ha sidaa samayn insha allah tacaala markuu isbedelaya asagii oo dhan وعدم توبيخه إن العنان ولومه إن الآذين بل يرحب به والسود وين مركو إمام ويقدم له النصائح نصيحة لصينا والتوعية وعيقلين الأبوية أي آبا نمو سواء من الأسرة أو من القائمين على الخلوة القرآنية دكسية والد كإنتبه هل كان قصة أيام الشيخي أنا ويري سومرتي أنا دكسية ديانو أرضي دكسية سجد لسان وها أيا وأنا حسوستا أرضي وان يري سجال أما طبعا مالها إنا جرني في الآية طبعا كوي طبعا سجال مالها مركا روحتي قار أصحابتي كم إذا واحد هن دكسية لو جنبياي ولا صوع ياراي وبيجا لا آدايو namari maxaa adigu maaragtay marka waan bilownay dhowr beri inaan ka gabino waalidkuna inaan dugsi jirno u qabaa marka macallinkii baa meel igu arkay macallinka waxaa la oran jiray maxamed deere xafidahullah ila al'aan inuu geeriyooday inuu nool yahay meel uu ku dambeeyey wallahi ma xasuusto laakiin xaqiiqatan macallin wuxuu ahaa saameyn igu reebay ila al'aan aan ka fikiro inaan dib u arko macallinka marka meel buu igu arkay waan xasuustaa marka wuxuu igu yiri maxaa kugu dhacay cumaro maxaad
dugsiga uga maqnaatay dhowr beri baan ku waayey soo ma ogid in ardadayda ninkaa ugu jeclahay aad ahayd oo maaragtay qur-aankaas aad u akrinayso iyo aan jeclaa oo aan rabay baba inaan u diyaariyo tartanka iyo inaad dugsiga u gashid saaxiibada xun maxaad u raacaysaa mar dambe saaxiiba xun ha raacin dugsigana ku dadaal haye macalin baan ku yiri weliba waxaan xasuustaa raggii kale oo maaragtay asxaab dhalinyaro yaryar oo aan soo dhiganaynay ardaydii aan isla gembinaynay sababta u ahaa qaar ka mid ah qaraabana aan ahayn buu waalidkood fariin igu faray wuxuu yidhi hebel iyo hebelna hooyadood u gudbi oo waxaad ku tirahdaa macalinkii isagana ha raanaa mar damba ha raacin macalinkiina u sheegay maaragtay inuu raggaa raadinayo ayib qisada marka waxaan ka soo wataa runtii waxaan xasuustaa saameyn bay igu yeelatay ereyga macalinka maalinka wixii ka dambeeyena macalinka baan jeclaaday waxaana noqday macalinka ardada khaaska ah leanna inuu qiimeynayo ba ii sheegay soo ma qofka biniadamka waxa qofka qiimeynaya asagana uu qiimeeya marka wuxuu yiri marka waxaan dareemay waagaa wixii ka dambeeyey macalinka inaan saaxiib la noqday oo macalinkii ardada u dhow aan noqday oo ma garatay wax badan ay iska kii bedeleen ilaa marka dambe inaan macalinka u khidmadeeyo inaan ka warqabo wahaakada ويحضرني في ذلك قصة حدثت لي أيام الطفولة مع أستاذ الخلوة الأستاذ محمد داير جزاه الله خيرا وذلك بعد أن تغيبت كان كما قال عن الخلوة عدة أيام بسبب تأثير رفقاء السوء مع أنني كنت قبل ذلك طالبا ملتزما أرضي السجدد على وحبر شريسة أنا وأحبابي معركتي ومواظبا على إنجاز مهامه الدراسية فلقيت المعلم في الطريق ومواظبا هل بعض وقردك وتويما فلقيت المعلم في الطريق وكان رجلا رحيما لن رحلت ضبوا إلى الآن وحنكون فكرة إن أنا أركواني هذا أوراني هدول انت الله محرسته هدول لي هنا لا هفتيه رجلا رحيما وطيبا جزاه الله خيرا فقال لي كلاما لطيفا هذا تبع سبب استطاع به حل مشكلتي إنه مشكلتي إذا حليت دون ضغط أسون إعداد أو لوم أسون أو توبيخ صيحنا قال لي ما لك تغيبت يا عمر ألا تعرف أنك من أفضل طلابي الذين أحبهم والذين كنت أفكر في إعدادهم للمسابقات ونصحني بعدم التغيب من أنا كما قال عندي أيوب ونسيحي وعدم مرافقة الطلاب المشاغبين فأثر علي كلامه وكلام كسوء سامي تأثيرا بالغا سامين وين ولم أتغيب بعد ذلك اليوم ما أنا كان مقرأ الدكسي ومالك وحكدمي بل أصبحت قريبا من المعلم أقوم بخدمتي وأفكر في شؤوني وأحرص على الالتزام بواجباتي الدراسية أقول ذلك لي واجا وحكدمي معلمك مركا إريغاس وإيري waxay hor istaagtay ardayda dhinac kale isii waday ama inaan raaco ama dugsiga loo gambiyo inaan ka haro maxaa yeelay mas-uuliyad weyn baa la saaray saddex min alumuur almuhima fi mucaalajati tasarub الدراسي dugsiga cararka waxa keenayo waxyaabaha lagu daaweeyo waxaa ugu muhiimsan rafcu macnawiyaat الطلاب cunuga macnawiyaadkiisa in kor loo soo qaado macnawiyaadka waxaa leeyahay qofka suu isagoo isku arko وتشجيعهم إن الذي رجلي وتحفيزهم إن الذي رجلي حتى تتعدل إلى وحلقة بدله نظراتهم سيء اسكو أركان إلى أنفسهم نفتوذ هذا هذا خوف حن اسكو أركت ونيجا بيسا لكن خوف في عن هذا اسكو أركته واتحرى أسعنسا خوف دذالي هذا اسكو أركت لكن خوف فاشل عينات هذا اسكو أمنت واتسيف فاشل ميسا لكن عنوك سو اسكو أركين وحلقة بدله ما شاء الله أدخل حنبال هذا maalin baa arday la ii keenay aad iyo aad carabiga iyo naxwaha ayaa ku adag waa la imtixaan bay galayaan marka arday ka mid ahaa yaa waxaa lagu yidhi naxwaha maba fahmaba cashirkii baan u sharxay waan la yaabay si u fahmayo maasha allah waxaan ku idhi daki baa taan ku idhi maxaa wallahi naxwaha ma fahmo wuu yaaba wuxuu yidhi awal shakhsi oo igu dhaho naxwaha daki baa ku tahay marka dhiirigelin baan ka dareemay ninkii inuu isbedelayba oo maaragta wax badan ay iska bedeleen marka cunuga macnawiyaadkiisa in kor loo soo qaado iyo dareenkiisa si uu asagoo isku arko hadduu cod qurxin yahay cod qurxa lagu ammaano maasha allah codkaada uu soo qurxanaadee bal sheekh hebel ku akhri kada ma garatay qodobkaa marka muhiim arbaca ينبغي البحث عن أسباب التسرب الدراسي لوضع حلول علاجية لها waxaa habboon in la baaro sababta keenayso
cunuga inuu dugsiga ka cararo casharada ku badan ma la garaacaa ma carruurta qaar xitaa waxaa laga yaabaa in waxyaabo kale ay hayaan jirooyin maaragtay nafsi ah oo laga rabo in quraan lagu akhriyo wax la mid ah hadda kahor baa macallin dowro wuxuu nooga sheekeeyey arday baa wuxuu yidhi lagu kari waayey dugsiga maalinkii dambe ayuu diiday dugsiga inuu soo aado yidhi marka waxaa dhacday buu yidhi inaan aniga iyo dhowr qof oo kale oo dugsiga dhalinyarada xoogana ayaan israacnay saan usoo qaban gurigoodii baan aadnay markuuna arkay buu guriga qolka fadhiga weji isku tuuray nag balkaale qaba adigu balkaale yaaba ka kicin kara dhulkii markii aan arkay yaan ka shakiyey buu yidhi cunuga suu noqonaya war ka joojiya ku yidhi bal maaragtay ka qabashada fariista quraan baa lagu akhriyey quraan baa lagu akhriyey suuratu baqara quraan baa lagu akhriyey waa lagu waday waa lagu waday waa lagu waday waa lagu waday quraanka saa ugu wadnay cunugkii jin baaba ka dhex dhawaaqay waxaa oo dhahayo qashin halkaa carruurteedu iga dulmaray wax la mid ah cunugii sidii baa qura ayaa jinka looga saaray marka cunugka jin baaba hayeyba ayagana dugsiga inuu diidayo ayay u qabeen oo iska ciyaaray marka asbaabta in la raadiyo marmar waxaa dhici karto in casharada ku adag yihiin horey aan u soo gadaal ka sheegi doono qodobka shanaad ishraaku taalib ardayga in lagu daro fi anshita tulaabiya nashaadaad ardayda ay qabanayaan in lagu daro wa isnaadi bacdi almahaami lahu mas-uuliyaad in loo dhiibo hadduu roonya qur-aanka oo kale ku fiican yahay oo kale cunugaas oo kale hal dhaha adiga waxaa mas-uul ka tahay shantaa cunug qur-aanka bar u dhegeyso oo soo diyaari anaa u dhegeysan doona casharka laakiin ka soo dhegeyso farta u sax macallinkan wuu ka baxay qofka markii wax mas-uuliyad loo dhiibo haba yaraadee cunug yarba ha ahaadee wuxuu dareemaa inuu qof muhiimad ahmiyad leh inuu yahay midna ogaada oo qofka bini'aadanka inuu muhiimad uu leeyahay waa inuu dareemo haddii kaleete ma socon karayo wuu niyad jabaya marka in ahmiyad la dareensiiyo cunuga maasha allah waa si fiican baad ugu dhigtay ninkan macallin ku-xigeen buu noqday waxay isugu asraacaynaa carruurta inta hala bixin waxaa lagu yiraa weliba ku yara waaweyn si khaasa وإسناد بعض المهام له حقا شقوين قار إن لوتيريو أو لوديو بعض المهام له كمساعدة المعلم معلم كأنه مساعدة في ترتيب الغرفة قولك نظام تيس هذا قابل سنة هذا قولك نظام كيسي ترتيب تيس أو مساعدتي في تدريس الأطفال الصغار عروض يرير إنه كساعد فرطة يقال كالتوسي ونحو ذلك لح لابد من التعاون الوثيق سكاش حوجا إنه نحمر على بين أسرة الطفل وإدارة المدرسة إمامكم مدرسة والمعلم يا معلم في معالجة مشكلة التسرب الدراسي مشكلة دوكسك عركة سيدي لقوا علاج لها مرنا بنا إن العدادية ولا قراعه حل معها وحن نفسي ونفتيسة أيا وحن ديدن marka laguma qasbi kare waa in dareenkiisii wax laga bedelo dareenkiisii in wax laga bedelo waayo marka kolba in wax lagu dayo dareenkiisii la bedelo maalin dhaweyd baa cunug yar oo wiilkayga oo maaragtay qur-aanka uu ku adag yahay xoogaa suuraddu ay dhibayso oo baran waayo aad maaragtay laisugu wareeray ayaa maaragtay yani casharkan kula diyaarinaya ninka marka waxaan arkay inuu niyad jabsan yahay xanaaqsan yahay wejigiisu bedelan yahay marka marka hore waa la kaftay waxaan ku yidhi waa maxay waa sibaad u xanaaqsantaha wejigaada waa bedelan yahay marka xoogaa wuu isfurfuray waa yara qoslaya wuxuu yidhi ayaddaana aad ii dhibayso suuratu yuusuf markaasaan ku iri ayb yuusuf insha allah way fududaanaysaa ku celinina waa baranaysaa kadib qisadaan uga sheekay marka aayadaha qisada ay ka hadlayaan waa aayadahan وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان إلى هلكا laga soo bilaabo ilaa safxada kale قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم وما إلى آخرها marka qisadii markaan uga sheekeeyey ninku waa farxay waa isbedelay ninka cashar ku adkaaba maaha maasha allah waa qisa cajiib aad iga sheekaysay qisa cajiib aad iga sheekaysay marka waxaan ilahay bismillah hadda bilaabayna waan bilownay 5 mar ku celi ayaddan waan kala jaraynaa ila haafka hore iyo haafka dambe joogsigaa hore bal horta ku celi maasha allah waad baratay joogsiga labaad haye bismillah وهكذا 10 marka sidii baan ku dhamaynay alxamdulillah
marka carruurta waxay u baahan yihiin kolba in wax lagu dayo, kolba wax la bedelo, kolba waxa la fiiriyo. Marka waa in qoyska iyo macalinka iyo maamulka iyo kulli inay isku dayaan inay ku xalliyaan si maaragtay nafsi ahaanba waxaan u diidan yahay nafsiyadiisa in wax laga bedelo. Hadda tusaalaha waxaan u keenay cunuga marka waxaa laigu soo gudbiyey in uu casharkii diyaarin la'yahay oo baran la'yahay hal aayadna dhaqaajin la'yahay. Marka in kolba waxaas oo kale la isku dayo, kolba dhinac laga fiiriyo, kolba maaragtay targhiib loo sameeyo. Waa ilmo yar waaye, wax badan baan ka bedeli karnaa biidnillahi tacaala. Loona duceeyo inta badan mar walbo waalidka iyo macalinka way u duceeyaan. Qur'aanka lagu akhriyo marmarka qaar. Carruurta qaarkood waxyaabo il iyo cayn iyo la xiriirta inay hayaan baa laga yaabaa. Marka carruurta yaryar in maaragtay qur'aanka ku akhriya la dhaho, uu macalinka uu ku akhriyo. Runtii macalin baan aad ugu bogayo cunug yar oo barashadii oo qur'aankii baran lahaa oo rafaad ciddii ay isku rafaadeen ayuu wuxuu bilaabay wuxuu yidhi bal u kaadee ninka casharka waan ka yaraynayaa qur'aankaan buu ku akhrinaya ninkan subax walba qur'aan buu u joogtay oo qur'aan buu saari jiray marka qodobka ugu dambeeya waa muraajacatu lkhutta bal in dib u eegis lagu sameeyo qorshaha waxbarashada iyo casharka uu qaato saa hore usoo qeexnay sababaha keeni kara waxaa ka mid ahaa nidhi in cunugu casharada ay ku adag yihiin muraajacatu lkhutta diraasiya qorshaha casharka in dib loo eego nisaab alxifd alyawmi iyo casharka uu qaadanaya maalinka iyo inta muraajacada laga rabo faqad yakuunu sababu tasarrub dugsiga cunugan wuxuu oga cararaya waxaa laga yaabaa ثقل البرنامج التعليمي برنامج waxbarasho inuu culis ku yahay ala taalib oo bog laga rabo isaguna marka intuu qaadi kara la eego nus safxa uu qaadi karo marka waa soo qeexnay kaas oo kale cunugaas oo kale waa maalin walba casharkii uu gafayaa marka dambe wa khawfihi inuu ka baqo min al-ihraj maaragtay wajigabaxnimada iyo xarajka uu kala kulmi doono amaama almucallim macalinka hortiisa wazumalaa iyo saaxiibadii maalin walba un dee wuxuuna qaadi karin baa laga rabaa bog baa laga rabaa isagana ma qaadi karo marka maalin walba wuu fashilmayaa ilaa marka dambe inuu cararo maaragtay ay arrintiisu kusoo urursato marka qodobadaas aan soo jeedinay waxay ku saabsan yihiin sidii lagu xallin lahaa tasarrufa diraasiga in mar walba loo duceeyo carruurta kolba wax la isku dayo wax la baaro meelaha aad ku qortid wax baartid maxaa yeelay runtii tarbiyadu waxaa weeye waa arrin aad u adag bini'aadan baa la tarbiyadaynaya bini'aadan baad rabtaa inaad wax ka beddesho waana lilasaf waa arrinta keliya ee qof walba asagoo takhasus u lahayn uu iska galo hadda maaragtay kalkaaliyaha caafimaad kalkaaliyanima lasoo baray injineerka injineernima la baraya macalinka macalinima lasoo baraya ama maaragtay dhakhtarka dhakhtarnima la baraya qof walba soo dhoweynta xitaa hoteelada iyo qof dadka waa lagu soo tababaraayo casharaa loo soo dhigaa laakiin tarbiyada qof walba wuu iska bilaabaya ilmu ilaahay siinaya horuu ka bilaabaya markuu isaga tajribu isaga wadayaa iyo ijtihaadkiisa shakhsiga inuu wax baarin wax dhegaysanin wax kororsanin baa laga marka say la tahay buu ku wadaya marka tarbiyada marka in wax la akhriyo wax la dhegaysto youtubeyada la galo wax la raadiyo waa muhiim jiddan waaye macallimiin ahaan iyo waalid ahaan labadaba ilaahi subxana wataala waxaan weydiisanayna carruurteena noo xifdiyo noo hanuuniyo waalid walba oo cunug maaragtay ku rafaadsan tarbiyadiisana ilaahay uu u hanuuniyo qalbigiisana qur'aanka iyo diinta iyo tarbiyada iyo khayrkaas macalinkiisa iyo waalidkiisa iyo dhammaan ay la jecel yihiin ilaahay subxana watacaala ha ugu toosiyo intaas ayaan kusoo gabagabeynayna darsigan hada wasali allahuma calaa sayidina maxamed wajazakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullah